xuskani waa iskugu soo baxeen bulshada ku dhaqan afarta xaafadood ee ay ka kooban tahay magaalada Lafaciise ayaa waxay bulshadu iskugu yimaadeen barxadda weyn ee dugsiga hoose dhexe ee Sheekh Muuse ee magaalada Lafaciise waxaana halka shacabka kula hadlay mas'uuliyiin kala duwan oo ay ka mid yihiin madaxa arrimaha siyaasadda ee degmada Awbare Mudane Shukri Macallin Cadow kaasi oo sheegay in xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida ee Itoobiya uu ku tallaabsaday waxqabad muuqda intii uu jiray kuwaas oo ay ka mid yihiin kor u qaadida horumarinta aasaasiga ah sida waxbarashada caafimaadka biyaha beeraha iyo wixii lamida wuxuuna mas'uulku carabaabay in xisbigu xooga saaray sidii uu uga midho dhalin lahaa qorshaha isbedelka kobaca dhaqaale ee 5 sano iyo dhimista saboolnimada markii la aasaasay xisbiga Soomaalida ayay noqotay in marka tubta horumarka dalka Itoobiya ka socotay la jaanqaadaan isla markaana bulshada ugu faa'iideeyaan maaragtay horumarka ka socday deegaanka sidoo kalena Marwo Sahra Cilmi Nuur oo ah afhayeen ku-xigeenka baarlamaanka degmada Awbare ayaa iyaduna dhinaceeda sheegtay in uu xisbigu guulo waaweyn ka soo hooyay horumarka nabadgelyada iyo maamulka suuban waxayna Marwadu tilmaantay in sanad guuradan 14aad ee aasaaska xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida ee Itoobiya ay ku soo beegantay xilli uu dawlad deegaanka Soomaalida uu ka hirgalay nidaamka dib u curashadu kaasoo ah mid ka shacabka u horseeday horumarka kala duwan ee ay ka faa'iideysanayaan waxa isaguna hadal ka soo jeediyay munaasabadani duqa magaalada Lafaciise Mudane Cabdi Qowrac Ismaaciil wuxuuna tilmaamay in xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida ee Itoobiya uu yahay kan hirgeliyay horumarka deegaanka loogana baahan yahay bulshada ku dhaqan magaalada Lafaciise inay garab istaagaan xisbigooda ugu dambeyntii ayaa waxay bulshadu ku soo bandhigeen ciyaaro dhaqameed ay ku maamuusayaan maalintani عمر عبدي تلفزيون عالمي Somali Sat جigjiga